السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله أن يهتم بإصلاح قلبه ولا يعرض قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم. الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أما بعد، والله ليال خطبتنا waxay ku saabsanayd sugnaanta lagu sugnaanayo acmaasha wanaagsan ee qofku uu qabanayo inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisto in Ilaahay acmaasha wanaagsan uu ku sugo. khudbadeenu waxay ka hadlaysay umuurahaas. waxaynu ogsoonnahay walaalayaal inaynu ka soo baxnay mawaasim Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu karaameeyey, heer Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku dhaartay maalmaha wanaagsanaa ee ina soo maray. maalmaha wanaagsanaa waxaynu qabanaynay acmaal wanaagsan oo ay ugu horeyso soomku ugu horeeyo, ducadu ku xigto, cibaadaad fara badan gudahooda lagu qabanayay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sunnooyinkiisa ayay ka mid tahay in ummadda uu soo mariyo waqti ay naftooda ku tarbiyadeeyaan mawaasim khayriya si ay u qabsadaan cibaadaad wanaagsan oo naftooda ugu tarbiyadeeyaan. mawaasimta walaalayaal wanaagsani waxay kaga tagaan raad qofka mu'minka cibaado wanaagsan la yimid. raadkaas waxaa caddayn u ah qofku inuu acmaashii wanaagsanaa uu samaynayay uu ku sugnaado. waxaynu wada ogsoonnahay walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka hore inuu inoo abuuray cibaado inoo abuuray. cibaadada qofka haddii laga waayo in ay noloshiisu ay noqonayso nolol aan waxba ka jirin oo nolol uusan qofkaasi garan maqsadkii loo abuuray. cibaadada haddii qofka laga waayo in adduunka korkiisa qofkaasi nolol wanaagsan uusan ku helayn, aakhirana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wanaag uusan uga horeyn. waayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunka markuu qofka abuurayo jinniyiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu u abuuray inay cibaado la yimaadaan oo ay isaga xaqiisa gartaan. cibaadada haddii la waayo qofka abuuritaankiisa iyo maqsadkiisiiba way xumaanayaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nabi Muhammad khayru khalqillaah ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay: wa'bud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin. nabi Muhammadow, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala rabbiga caabud ilaa inta ay geeridu ka imaanayso. wasalaam. arrinkaa waa ku sugnaaday. Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala wuxuu oofsaday isagoo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waajibkiisii gutay. walaalayaal waxay diinteenu ina amraysaa nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ku tarbiyadayn jiray in acmaasha la daa'imo. nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a isagoo saxaabada la fadhiya ayuu weydiiyey. wuxuu yidhi: waryaa maanta 4 su-aalood buu nabigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey. wuxuu weydiiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam: yaa maanta qof miskiina sadaqa siiyey? yaa maanta soom ku waabariistay isagoo sooman? yaa janaaso raacay? yaa qof xanuunsan soo booqday? 4 arrimood maanta yaa la yimid buu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi. abubakar usidiiq radiallahu canh ayaa 4tiiba ku jamciyey oo 4tiiba maalinkaa la yimid. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: 4 arrimoodi qof muslin ah iskuma kulmaan maalin oo maalin 4 arrimood ma daa'imo lama yimaado ilaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala janno ayuu ku abaalmariya. waxaa la mid ah walaalayaal in nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cumar radiallahu canhu uu ku yidhi, cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku yidhi: waxa ha noqon cabdulaahiyow sida hebel ha noqon. waayo hebel wuxuu ahaa mid salaatuleylka u kaca oo wuxuu caado ka dhigan jiray inuu habeenkii Ilaahay u kaco, uu habeenkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaado u la yimaado. laakiin cibaadadii uu ka faaruqo uu ka tegey ee sida hebel ha noqon oo intaad camal wanaagsan aad bilowdo oo camal Ilaahay wanaagsan uu kugu barto, camalkii Ilaahay kugu bartay ha ka tegin oo ha ka faaruqin. sidaas oo kale ha noqon buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi. walaalayaal
wuxuu xabiibkeenu sala allahu calayhi wasalam inoo sheegay in acmaasha ilaahay ugu jecel yahay in ay ka mid tahay camal yar oo aada samayso walow camalkaasi aada ha u yaraadee. axabu alacmaali ila allahi adwamuhaa wa in qalla. camalada ilaahay ugu jecel yahay waxaa ka mid ah camal la daa'imo oo qofku uu ku sugnaado. camal la daa'imo qofku uu ku sugnaado oo isaga iyo ilaahay iska og yihiin, isaga iyo rabbiga isla og yihiin. camalkaa wanaagsani oo qofkaasi uu samaynayaay waa camalada ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay. waxaynu wada ogsoonnahay walaalayaal acmaasha wanaagsan aynu samaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu ku raaligelinaynaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aynugu mahad celinaynaa. sifaad baa laga dhexlaa qofku inuu acmaasha wanaagsan ku daa'imo oo acmaasha wanaagsan qofku uu ku sugnaado. waxaa ka mid a walaalayaal itisaalu lqalbi likhaaliqih, in ilaahay subxaanahu wa tacaala lala xidhiiriyo qalbiga oo qalbiga rabbigii abuurtay mar walba uu noqdo qalbi u cibaadaysanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni uu ka warhayo. waxaa ka mid a walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala yani jacaylkiisa aynu ka helno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu jeclaado oo ficil iyo camal ilaahay jecel yahay markaad samayso oo aada la timaado laa shaka adigana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku jeclaanayo. adiga haddii rabbi ku jeclaado in arlada lagaa jeclaanayo, samada lagaa jeclaanayo, khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray oo dhan ay ku jeclaanayaan. waxaa ka mid a walaalayaal acmaasha wanaagsan yacni waxyaabaha laga dhaxlo iyo raadka ay ka tagto acmaasha wanaagsan oo la daa'imo waxaa ka mid ah in qofku uu ku badbaado adduunyada, aakhirana uu ku badbaadiyo oo qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala caabuda, cibaado wanaagsan ula yimaada, sifo wanaagsan mar walba ku dhaqma oo arrinkaa ku sugnaadaay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballan qaaday in adduunka nolol wanaagsan uu ku noolaynayo, aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku raaligelinayo. waxaa ka mid a walaalayaal asbaabta wanaagsan ee laga dhaxlo qofku inuu camal wanaagsan yacni ku daa'imo inuu qofkaasi ka dheeraanayo macaasida oo qofku hadduu acmaal wanaagsan mar walba la imaanayo, salaadii mar walba uu tukanayo, yacni wanaag oo dhan mar walba uu kulminayo, qofkaasi inay xumaantu ay ka reebayso salaadu, wanaag oo ay xumaanta ka reebayso oo qalbigiisaasi markuu ilaahay ku xidho in uusan yacni qalbigiisaasi noqonayn mid xumaan u horseeda ee uu noqonayo mar walba mid wanaag u horseeda. waxaa ka mid a walaalayaal in ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatimada qofka u hadaajiyo. waxaynu wada ogsoonnahay in aysan nafina garanayn waqti ay dhimanayso, laakiin waxaynu ogsoonnahay in la wada dhimanayo. lama oga waqti la dhimanayo, si lagu dhimanayo, sifo lagu dhimanayo, nooc loo dhimanayo qofna ma oga. laakiin qofku hadduu camal wanaagsan mar walba ku daa'imo oo mar walba qof ilaahay caabudo uu yahay, mar walba ilaahay u cibaadaysanaya, mar walba rabbigii xasuusan, waxaa loo badinayaa qofkaasi in sifad wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku oofsado. nabigeena calayhi salaatu wassalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa in uu ku ducaysan jiray yaa muqalliba alquluubi thabbit qalbii calaa diinik. ka quluubta gadgadiyow yacni qalbigayga diintaada ku gadi oo qalbigayga ku rug. waa la weydiiyey xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahay baa tahay, haddana waxaad ku ducaysanaysaa ducadan iyadaa baanu ku aragna inaad ku celcelinayso. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alquluubu bayna asaabici araxmaan. quluubtu waxay ku sugan yihiin laba faroodoo ka mid a faraha ilaahay subxaanahu wa tacaala, yuqallibuhaa kayfa yashaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu doono ayuu u rogaa. qof baa wanaagsanaa oo yacni sifo wanaagsan ku dhaqmaa oo lagu yaqaanay inuu qof wanaagsan ahaa, marka ay geeridiisu soo dhowaato ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gadinaya oo yacni kitaabkiisa usoo hormaraya. inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisano ilaahay inuu nagu sugo, diinka inagu sugo. ilaahay subxaanahu wa tacaala diinka inagu sugo, acmaal wanaagsanna aynu ku dadaalno inaynu daa'imo. nabigeenu calayhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa mid qiyaamuleyl u kaca oo qiyaamuleyl habeenkii oo dhan tukada. habeenka ay dani ku dhacdo ama uu xanuusto ama uu yacni nabigu calayhi salaatu wassalaam mashquulo, kaana sala allahu calayhi wasalam wuxuu gudi jiray maalinkii ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam gudi jiray. sifadii wanaagsanaaye rabbigaa subxaanahu wa tacaala kugu bartay, camalkii wanaagsanaaye ilaahay kugu aqoonsaday ee uu kugu yaqaanay ee addoonkiisa oo aad ku ahayd inaad yacni ka leexata maaha, inaad sidiisii u wado adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni ku raaligelinaya. waxaynu ognahay walaalayaal adduunka korkiisaba dadka marka la qiimeynayo waxaa la eegaa sabirkooda iyo casiimadooda iyo say u dhaqmayaan baa la eegaa. nolosheenna adduunyadaba haddii lagu cabirayo miqyaaska ay leedahay oo lagu cabirayo qofkan siduu u sugnaado lagu cabirayo, maxaad u malaynaysaa nolosha dambaysa ee aakhiro ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cabirayo. acmaasha ugu wanaagsan ee ilaahay jecel yahay bay ka mid tahay in camal yar qofka uu daa'imo walow camalka haba yaraadee 2 ragcadood
saddex ragcadood yacni jus qur'aana camal wanaagsan oo daa'imta ilaahay baa kugu jeclaanaya aakhira waad ku badbaadaysaa adduunkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ximaayo iyo wanaag buu kugu siinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaad allah ina allaha ya'murukum biamrin cadiim بادئا بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد